وافيدنimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha Janaayo sanada 2022 ku soo dhawaada warka fiidnimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. inkastoo uusan ra'iisul wasaare Roble lahayn aftahanimo weyn haddana 2 daqiiqo ayuu ku jeediyay hadal xaaladda lagu jiro dab ku sii shidaya waxa uu sheegay inaan wax guul ah laga gaarin wada hadaladii ku aadanaa sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha ay dawladdiisa u dhigayso doorashada. ra'iisul wasaare Roble haddii ay daacad ka tahay in uu dalka doorashada furan ka qabto waa inuu yeeshaa geesinimo uuna runta u sheegay shacbiga. dhowr jeer ayuu ra'iisul wasaare Roble ku celceliyay dawladda waa ay tanaasushay. shacbigu waxay isweydiinayaan maxay ka tanaasushay dawladda. waxay soo codsadeen labada dawlad goboleed ee maqan waa la yaqaan oo waa in gobolka Gado loo madax banaaneeyo dawlad goboleedka Jubbaland lagana soo qaaday ciidamada dheeriga ah ee lagu daldalay. labo iyo in xubnaha guddiga doorashada ay ku jiraan xubnaha uu sharciga ka reebaya inay ka mid noqdaan guddiga sida saraakiisha NISA iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladda laga saaro. haddaba ra'iisul wasaaraha shacbiga ha wacday waxa ay dawladdiisa ka tanaasushay. sidoo kale madaxweyne Qoorqoor oo ay dawladda u wakiilatay in uu warkeeda u qaado dawlad goboleedyada shacbiga ha u sheega waxa tanaasulka ah ee uu geeyay dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ay soo diideen. waxaan caqli gal ahayn in guddigii dhammaa ee doorashada qaban lahaa aan heshiis lagu ahayn haddana dawlad goboleedyada lagu dirqinaya in xildhibaanada aqalka sare ay soo magacaabaan iyadoo ay hore u soo gudbisay shabakada Sirta Media ayay mar kale shacbiga u xaqiijinaysaa in geedi socodka uu sheegay ra'iisul wasaare Roble uu yahay hab khiyaano ah kaas oo ah in dawlad goboleedyada loo gudbiyay codsi degdeg oo ah inay soo magacaabaan senatarada kadibna laga wada hadlo xubnaha guddiga taas oo ay dawladda ugu dan leedahay. in ay beesha caalamku u sheegtay inay bilaabeen howlaha doorashada ama election process. labo iyo inuu yiraahdo madaxweyne Farmaajo waan sii joogaya maadaama aan bilownay arrimaha doorashada. dhinaca kale waxaa shirka ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. haddaba shacbiga gobolka Banaadir waxa ay weydiinayaan gudoomiyaha in uu meel soo saaray 13 xubnood oo ay golaha shacbiga u ansixiyaan madaxweynahan uu miiska hoostiisa gashaday kadibna uu diiday inuu saxiixo. madaxweyne Farmaajo oo lagu yaqaan balanka baxyada joogtada ah waxa uu diiday inuu saxiixo 13 xubnood si baarlamaanka cusub loogu soo daro. haddaba shacbiga Muqdisho waa inaysan ogolaanin in aan lagu dul dhisin baarlamaan wakiilo dantooda u doodi kara aysan ku lahayn. marka Cumar Filish u sheegay reer Banaadir shirkaasi waxa ugu soo baxay wuxuu ku socdaa madaxweyne Farmaajo jidkii Trump uu ku guuldareystay keeni doontana in bilooyinka soo socda lagu maxkamadeeyo iyadoo Fahad Yaasiin oo ku kaalmeynaya in qaladaadka dastuuriga uu sii wado. farmaajo haday bilaabatay cid ugu horeysa ee bartilmaameedka noqonaysa waa isaga iyo Fahad Yaasiin ee shacbiga Banaadir la gaarsiinin heerkaas dooni qaatiyaasha la jooganaya sanbeen u sheegin. maxaa la gudboon haddaba ra'iisul wasaare Roble? ra'iisul wasaare Roble waxaa la gudboon si doorasho wadar ogol ay u dhacdo inuu joojiyo doqonnimada darbiga madax ku dhufashada ah. waa inuu saxa guddiga uuna ka saaraa shakhsiyaadka aan sharciga u banin ee ka kala yimid ciidamada iyo shaqaalaha rayidka dawladda federaalka Soomaaliya. labo waa inuu la fariistaa mucaaradka dhabta ay awoodooda ay muuqato isagoo u bandhigaya shakhsiyaadka uu ku darayo guddiga cusub ee lagu bedelayo kuwa hadda jooga. saddex waa inuu meel saaraa 13 xildhibaan ee gobolka Banaadir oo ay shacabkooda u soo jeedaan kuna qancin ereyada mahadlaha iska daba jooga ee Cumar Finish oo u sheegayo. afar waa in uusan qaadin talaabo lagu sii kala fogaanayo oo uusan wax ku dhisin aragti qaldan sida dawlad goboleedyada aan go'aan ka qaadan karin oo uusan ku qasbin inay soo magacaabaan xildhibaanada aqalka sare. shan musharaxiinta waa inaysan ogolaanin in hal tuule iska badhaafay dawlad goboleed laga qaban doorasho keeni karta gacanka hadal oo aan la isla ogoleen. lix dawlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle waa inay ka feejignaadaan in aysan dalka u horseedin qatar oo deegaanadooda ma aha kuwa keligooda ay leeyihiin waxaa la leh musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo ay habboon tahay inaan lagu qasbin inay hor istaag ku sameeyaan dawlad goboleedyada raba inay doorashada u boobaan dembigana la qaybsada Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. qodobada waxay saldhig u noqon karaan haddii ra'iisul wasaare Roble uu rabo in doorasho uu qabto waayo waxa caqli dara ah isagoo aan hal shay ka xalinin tabashooyinka loo soo jeediyay. ra'iisul wasaare Roble ha ogaado waa cunug ku jira uurka Farmaajo oo haddii uu caawa meesha ka baxa uu raacayo oo aan ka harinin laakiin wixii wanaag ah ee uu sameystaa uu saameyn u yeelan doono mustaqbalkiisa siyaasadeed ee dalka. dhanka kale afhayeenka musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor in uu ka been sheegay waanwaantii socotay ee doorashada. madaxweyne Qoorqoor waxay ahayd in uu 3 maalmood gudahood jawaab nagu soo celinayo wax jawaab ah kama heno waxaan la yaabnay inuu yiraahdo jawaab waan ka waayay dhinaca kale ma jirto wax jawaab ah oo Qoorqoor nooga yimid ayuu yiri afhayeenka musharaxiinta. Ridwaan Xirsi ayaa cadeeyay in aysan suurtagal ahayn in la boobo doorashada dalka ayna nasiib darro tahay in go'aan aan loo dhameyn ay qaadatay dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna intaasi ku daray inaan wax xal ah laga gaarin doorashada Somaliland arrinta gobolka Gado iyo gudiyada ay ku jiraan saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha dawladda. dhinaca kale musharaxiinta madaxweynaha ayaa lagu wadaa in ay shir degdeg ah yeeshaan saacadaha soo socda ayna go'aan kaga soo saaraan go'aanka ay qaadatay dawladda iyadoo sidoo kalena go'aano kale laga filayo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. dhanka kale sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayno gobolka Hiiraan ee dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in saaka 4 diyaaradood oo sida cutubyo ka tirsan ciidanka Haramcad ay ka degeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. sababta ciidamadaasi loogu diray magaalada Beledweyne oo muddooyinkan dambe uu ka taagnaa khilaaf dhanka maamulka ayaa lala xiriirinayaa inay la xiriirto doorashada la doonaya in lagu qabto magaalada Beledweyne
duleedka magaalada Beledweyne ayaa waxa ku sugan ciidamo jabhada oo uu hogaaminayay Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo aad uga soo horjeeda madaxda cusub ee maamulka Hirshabelle. Farmaajo ay ka go'an tahay inuu xaqiijiyo in doorasho isagu watay ka dhacdo magaalada Beledweyne. Madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xalay madaxtooyada kulamo kula qaatay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada intooda ku sugan magaalada Muqdisho. Walaac badan ayaa laga muujinayaa ciidamadan cusub ee la geeyay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Dowladdan wax faahfaahin kama aysan bixinin ujeedka ciidankani. sida ay bahda warbaahintu wax xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa qaaday talaabooyin waxgala kuwaas oo sababay in dowladda Soomaaliya ay ka laawato go'aankii ay ku saxiixi rabtay xaraashka shidaalka Soomaaliya. xildhibaanada la hadlay bahda warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la hadlay madaxda shirkadaha isku dayay inay heshiiskaasi galaan iyo sidoo kale dowladaha laga leeyahay. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la hadlay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, bankiga adduunka iyo IMF, isagoo u sheegay in haddii heshiiskaasi la saxiixo uu dhankooda saameyn karo maadaama Soomaaliya ay weli ku jirta hanaan deyn cafina. wararkan helna ayaa sheegaya in ugu dambeyn uu miro dhalay dadaalkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku diidanaa heshiiska shidaalka Soomaaliya, kaas oo halis weyn ku ah dalka xilligan la joogo isla markaana shirkadaha ay ka laabteen. heshiiskan ayaa la aaminsan yahay in dowladda ay ka heli lahayd malaayiin lacag ah oo ay ku gashay doorashada Soomaaliya. ceelashan shidaalka ayaa laga qodi rabay xeebaha magaalooyinka Hobyo iyo Baraawe, waxaana heshiiskaasi la damacsanaa in la saxiixa Isniinta toddobaadkani. waxaa isa soo taraya cadaadiska lagu saarayo madaxweyne Farmaajo inuu xilka iska casilo bishan Janaayo dhexdeeda. cadaadiska ayaa ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada dariska iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka oo ay ka mid yihiin ururka midowga Afrika, urur goboleedka IGAD iyo ururka midowga Yurub. maqaal ka soo baxay wargeyska African Intelligence ayaa lagu qoray in madaxweynayaasha Ismaaciil Cumar Geele iyo Uhuru Kenyatta ay ku heshiiyeen sidii aanu mar labaad xukunka ugu soo noqon lahayn madaxweyne Farmaajo. maqaalka ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu halis ku yahay ammaanka geeska Afrika, waxaana sidoo kale lagu sheegay in awoodda shabaab ay sii korortay tan iyo markii uu xukunka la wareegay bishii Febraayo sanadii 2017. waxaana la sheegay in agaasimaha sirdoonka NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu gacan siiyo kooxda Al-Shabaab isagoo kaalmo ka helaya dowladda Qatar. madaxweyne Farmaajo oo ay ka go'an tahay inuu baawo doorashooyinka isla markaana ka biidiiday inuu aqbalo kala dirista guddiga doorashooyinka ee lagu murunsan yahay iyo in uu gabi ahaanba diiday in doorashooyinka gobolada waqooyi loo madax banaaneeyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo ugu horeeya gudoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. waxaa dhowr jeer musharaxiinta ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin in uu baawo doorashada madaxweyne Farmaajo, taasoo keentay cabsi ah in dalka mar kale uu dagaalo sokeeyo uu ka dhaco. madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho keenay ciidamo isaga ku heeba, wuxuuna magaalada Muqdisho ka saaray ciidankii ilaalada madaxtooyada isla markaana ciidankii loogu talagalay difaaca caasimadda la geeyay gobolka Gedo. adigoon wereerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta meediya.